waxaanu maanta ugu talagalnay wasaarad ahaan inaan laba arrimood aad u muhiim ah aan u bayaamino ardayda waxbarashada. Kolley sanad dugsiyeedkii 2017 iyo 18 waxaan ugu talagalnay in tayada waxbarashada kor loogu qaado. Taasina waxay ka mid tahay waxyaabihii si ardayga aqoontiisu kor ugu soo kacdo. Sidaad arkayseen kolley sanadkan wax badan baa ka bedelay imtixaankii shahaadiga ah. Waxaan u arkaa in waxbarashada siyaasadeed ma ahine in tayada waxbarashada mid ka tahay sababtoo arday walba imtixaanku ma aha ciqaab laakiin waa qiimeyn ardayga ku taagan yahay ardayga noo soo baxayna arkay u yahay. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa una hambalyeynaa mar walba garabkooga taagan yahay dhammaan macallimiinta juhdiga iyo dadaalka geliya ardaydaas iyagoo waxay qaataan iyada yihiin haddana waxay raalli ka yihiin inay soo saaraan ubad dhisan aqoon leh sababtoo ah waxay had iyo jeer heegan u yihiin si ay u tayeyn lahaayeen ubadkoogii. Laakiin ubadku marka laga hadlayo leeyahay nacam imtixaamaadkii dhibta ugu badan ay geysteen wuxuu ahaa WhatsApp-ku maaha isticmaalkiisa iyo tiknoolajiyadu waa mid muhiim u ah in la isticmaalo tiknoolajiyadu ardaygu yaqaano laakiin qaabkeebaa loo isticmaalayaa waa positive-ka. Muhiimadda ka lahayd ee sanadka nacam lagaga kasalay wax kale ma ahayne ardayga haddii ka sugo inuu macallin imtixaan u soo diro oo uga shaqeeyo dee maaha sidii loogu talagalay ee wanaagsanayd ee waxa meesha ka lumaysa kalsoonidii ardaygu isku qabi lahaa ee qalinka iyo isaga noqon lahayd. Taasay wasaaraddu uga dan lahayd laakiin wax kale uga dan lahayd aaladda joojiye ma ahayne ardaygu inuu kalsooni helo una cid isku halayn wax uga soo shaqeysa ee lagu xisaabtamayo. Insha Allah taas waa mid maanta hadda waxaan cadaynayaa laba ujeedo oo muhiim ah. Mid waa iga ogeysiis waxaan dhammaan ogeysiinayaa ardaydii imtixaanka shahaadiga ee fasalada 8aad cid kasta oo danaynaysa iskuulka SOS ee boarding-ka ah waxaa la galayaa imtixaankii iskuulkaas uu qaadayay waxaana u fadhiisanaysaa ardayda imtixaankooda uu ka sareeyay 571 oo ka kooban dhammaan ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. Waxaana lagu galayaa Hargeysa maalinta Khamiista ah ee bishuna tahay 21-ka bishan 9aad aynu ku jirno 2017. Marka cid kasta oo iskuulka danaynaysa way ka faa'iideysanaysaa fursadda. Waxaana lagu qaaday xafiiska imtixaamaadka ee santarka ama caasimadda Hargeysa. Marka waxaan leeyahay jaaniska ka faa'iideysta. Taas waa iga mid. Talabaad waxaanu diyaarinay ardaydii fasalada foonfoorada ama dugsiyada sare ee imtixaanka markaa dhacay ee 105 ardayha waxaanu u diyaarinay macallimiintii ugu tayada wanaagsanayd oo nagu diyaarinay dugsiga Sheekh Cali Jawhar oo laba galaas uga banaynay ardaydaas una diyaarinay dhammaan macallimiintii ugu fiicnayd maadooyinka loo dhigi lahaa si muddadii 4 bilood ee wasaaraddu ballan qaaday ay ugu dhigto. Sababtoo ah Sheekh Cali waxaan xulnay kow lab computer-kii baa yaala, laba wuxuu leeyahay labkii physics-ka kii chemistry-ga iyo kii biology-ga bal in ardayda xataa practical 4 bilood aad loo xoojiyay dugsiga doonay haadaane boqolkii ardayba diiwaankooda waan soo dhejinay Sheekh Cali Jawhar waa inay maalinta Sabtida ah iska xaadiriyaan hadduu alla yiraahdo dugsiga Sheekh Cali Jawhar way macallimiinta diyaar ugu yihiin ugana faa'iideystaan muddada 4 bilood ah. 4 bilood dabadeed si ardayda waxaan barnaamijkan loogu talagalay waxa weeyaan waa kobcinta aqoonta iyo tayeynta waxbarashada la dhaqaa. Nacam 4 bilood in ardaydii kor loogu soo qaado aqoontoodii kalsoonidoodii la dhiso la tayeeyo waxbarashadoodii ardayga isku kalsoon hadduu Ilaahay raahdo muxuu ahaay February imtixaanka kowdeeda uu fadhiisto hadduu imtixaanka markaa baaso si uga gaadho jaamacadihii uu galo dalka. Marka insha Allah waxaan fariinta gaarsiin dhammaan ardaydu waa inay ka soo xaadiraan. Wasaaraddu mar walba waxay heegan u tahay sidii ardayda fursad u siin lahayd ay waqtigoogii u ilaalin lahayd. Insha Allah taana ka faa'iideystaan. Fariinta ugu dambaysa in halka raacin lahayn ka sii faa'iideysan waxa weeyaan inkastoo hadduu Ilaahay raado Khamiistan jaamacadaha ballan leenahay haddana waxa muhiim ah waa in bahda waxbarashada iyo siyaasaddu ay kala madax bannaanaadaan. Waa bahda waxbarashada iyo siyaasadda ujeedada maxay dhammaan
howlwadeennada waxbarashada heer jaamacadeed, heer dugsi sare, heer wasaaradeed, heer dugsi hoose waxa ka caagan inay ka mid noqdaan siyaasadda. marka laga reebo cidda siyaasadda leh wasiirada, wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowladda kuwa political, laakiin howlwadeennada shaqada leh iyo kuwa waxa kaliya haatay yihiin ummadda dhexdooda yihiin. waxaan wasaaradda isla qaadanay xarunta shaqaalaha, xarunta dugsiyada sare, dugsiyada hoose inaana laga mid noqon asxaabta maanta socota. ardaydu cid walba way leedahay inayna saameyn ku yeelan baan rabnaa ardaydii, oo saameyntaas waxay noqon doontaa hadday ku yeelato macallinku intuu xisbi soo fadhiisto ama anoo reer hebel soo idhaahdo dee waxay kaga tegi doontaa waxaan kasoo kaban weyno. marka waxaa ka madnooca oonu dugsiyada sare ama dowli haado ama ahaado dugsi gaare kala saxeexanay in macallinka lagu arko howlahaas inaan sharciyaan dejisanay qodobka koowaad, tallaabada koowaad, tallaabada labaad iyo ta saddexaad. insha allah jaamacadana waxaan ka rajeynayaa dee macallin xisbi ka midihi inuu arday wax u dhiga maaha. waanad ogtiin asxaabteennu waxay ku salaysan yihiin iyo gundhigooga. markaas si ayna inoogu xumaan tayadeennii waxbarashadeennii isku dhex milmin waa inaynu kala joognaa. qof kasta cidda uu rabo haddii uu ka mid yahay bahda waxbarashada waxaan u sheegayaa inuu waayihiisa laabta ku haysto, cidduu codka siinayo maalintaa uu siiyo, laakiin una ka mid noqon dadka shaashadaha ka soo baxa ee oleeya, dadka shaashadaha ka soo baxa reeblo halkaa mar idhaahdo sidee carruurtu soo istaagi. carruurtu waa cid walba inay naga gelin jaamacadaheennii, dugsiyadeenii ama bahdeennii waxbarashada inay naga soo gelin. insha allah ilaahay bisha iyo barkaa hadhayna si khayr lah inagu dhaafiyo, doorasho khayr lana oo dalka iyo dadka waddanana ciddii ilaahay u calfo madaxweynaha yaynu soo dhaweynaynaa. laakiin inagu waxbarashaynu nahay, baada waxbarashadu qalinka ayay isku bahan yihiin, waanay ka reeban tahay waxa la idhahaa siyaasad iyo asxaab iyo wixii kale ee meelaha saameynta ku yeelanaya xun ardayda. marka laga waantoodo marka hore waa fariin hore waraaqaan u qaybna dhammaan, haddana wanaga iswada gaadhsiinay oo waraaqaan imkana qaybinay. waxaana keliyoon kale danta kalena waxa weeyaan waa ubadkeenna iyo waxbarashadeenna aynu ka saarno siyaasadda. waxaan wargelinayaa dhammaan macallimiinta jaamacadaha ee gobolka Awdal, macallimiinta dugsiyada sare ee gobolka Awdal, macallimiinta dugsiyada hoose ee gobolka Awdal iyo shaqaalaha waxbarashada ee gobolka Awdal in arrinka aynu dhammaanteen isuga wada qaadanay ee ah in siyaasadda lagu milmin. ciddii hawsha aynu isla ognahay inaan fulin weyda ee ka waantoob weyda inay siyaasadda ka dhex baxdo waxaynu ka qaadaynaa tallaabo sharciga waafaqsan oo sharciga wasaaradda waxbarashada u yaalla ah. haddii sharciga wasaaradda waxbarashada u yaalla uu ku dhaqmi waayna sharciga dalka u yaalla ee u yaalla ciddii shaqaale ah ama bahda waxbarashada ah wayna tallaabo adag oo sharci waanu ka mari doonaa hadduu ilaahay idhaahdo. dhammaanteen waa inaynu wada tixgelinaa sharcigaasi oo aynu wada ilaalinaa wixii dhibaato ku ah waxbarashada ee saameynta ku yeelanaya ubadkeenna iyo gobolkeenna iyo degmadeenna iyo dalkeenna oo dhanba. waa waajibaad qaranayna wada saaran, haynu wada ilaalino dhammaanteen. annaguna waxaan diyaar u nahay haddaan guddoomiye wasaaradda waxbarashada tacliinta sare gobolka Awdal in aanu iska bilaabo oon ilaaliyo wixii anshaxa ee u yaalla aynu wada dhigan inaan lambar 1 ahaado. idinkana waxaan iga rabaa dhammaantiin cid macallinka oo arday wax u dhigay siyaasadda kuma milmi karo, ama jaamacada ka dhigo ama dugsi sare ka dhigo ama dugsi dhexe. cid walba waajibaadkeega ka mari doona hadduu ilaahay idhaahdo.